بروتوكول فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو هاي أما سنتين مايمو ساسوير. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينياشي هوري صوماليا، رئيس وزارياشي هوري صوماليا، قدون كاللبدا أقل إيه بارلمان كصوماليا، مدنياشا اللبدا أقل، حبناها قولها وزير هذا، قدوميها محكمة السرع، مدحوينياشا مامل دولة قبلية taliyaasha ciidanka madaxda iyo xubnaha matala dawladaha aan saaxiib ka nahay diblomaasiyiinta Soomaaliya ee halkan jooga qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dhammaan marti sharafta ee halkan fadhida iyo dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed ana daawanayo waxaan ku leeyahay halkan salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaan diiran kadib waxaan marka ugu horeysa halkan ka bogaadinayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mudanayaasha labada aqal sidii habsamida lahayd ay u soo agaasimeen doorashooyinkii dalka ka dhacay. waxaan sidoo kale ammaan ballaaran u jeedinayaa madaxdii dawladdii hore oo ay ugu horeeyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid kaalintii ay ka qaateen daadihintii iyo taabagelintii hanaankii doorashada iyo shaqadii cuslayd ay soo qabteen iyagana ku soo shaqeeyay duruufo aad iyo aad u adag. waxa ayana kaalintaas aan ka lidan qaatay madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo gudiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol. waxaan dhammaantood uga mahadcelinaynaa kaalintii mugta lahayd ay ka soo qaateen hawshaas adag. sidoo kale waxaan hanaanka doorashada Soomaaliya hiil iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeq-bixiyaasha caalamka iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn. mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka. waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horreeyay oo aan soo wada shaqeynay. muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee Soomaaliya qaadatay markii ay xorriyadooda qaadatay sanadkii 1960. mudanayaal iyo marwooyin dawladeenna waxaa horyaal caqabado aad u fara badan inkastoo aanan dadaal yaraysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dawladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxaa
la qaban karaa ay koobnaan doonaan waana ognahay waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in 4 sano soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen 26 sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen xalkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo 20 sano oo kale sidaas darteed waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ee soo socota kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dawladaha naga dambeeya ayaan dhamaystir doona insha Allah laakiin dawladeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo ciisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxa kamid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadanimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhamaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed xoojinta sareynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dawladooda yareynta saboolnimada iyo faqriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dawladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dawladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi haddii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeenu geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin Uganda Kenya Burundi Djibouti iyo Ethiopia runtii hawl wanaagsan ay qabteen oo aan u baahnayn waxaana hadda socda oo ay buuxsantay 10 sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yeegleelidda ciidanka qaranka oo amnigeena ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaano hadafkaas in badan oo kamid ah wuu hirgalay balse in badan ayaa wali harsan xukuumadaydu waxay AMISOM kala shaqayn doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeena si ay Soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeena iyo dadkiisa u shaqeeya mudanayaal iyo marwooyin gobollo badan oo kamid ah dalka waxaa in dhawaanba afeeyay abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba baabi'iyay muuqaalada xoolaha la'aanaya iyo dhulka xaalufay waa kuwa aad u xanuun badan abaarahan waa kuwa soo noqnoqday iyo macaluush oo marar badan horseeday macaluul fara badan sida dhacday sanadkii 2011 haatanna laga cabsi qabo xukuumadeenna ilaa shacabku dhan waa wada leeyihiin xukuumadan iyagaas ka leh oo kaashanaya
khubaro gudaha iyo dibadda waxaan la imaan doonaa istiraatiijiyad cad oo looga waabto aafada abaaraha. istiraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadi'da caalamiga ah ee adkaysiga aafooyinka ama resilience. intaas aan roob la'aan waxba laga qaban karin ilaan waa wax ilaahay shaqadiisa ah, haddana waxaa loo diyaar garoobi karaa natiijada ka dhalata. mudanayaal iyo marwooyin, dib u heshiisiintu waa geedi socodka soo bilowday 12 sano ka hor, welina way socdaan. dowladeennu waxaa mas'uuliyad gaar ah iska saari doontaa dhammaystirkii dib u heshiisiinta bulsho. waxaa ceeb nagu ah in sanadka 2017 ay weli kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan. habeenkii la doortay soo hodintaas waa la isaga gooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan. dib u heshiisiintu ma aha in la isa soo hor fariisto oo keliya. mararka qaarkood waxaa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in la isku soo dhowaado. dowladeenna waxay xoogga saari doontaa dib u heshiisiinta magaalada Gaalkacyo. si xal waara loogu helo waxaana u mahadcelinayaa madaxdii iiga horeysay xilka oo dadaal buuxa ka geystay arrintaas, iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno shaqadii ay halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu heshiisiinayay. dowladeennu waxay la imaan doontaa hannaan cad oo loo maro dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka. waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karno insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. wada hadalladii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo walaalaheen Soomaaliland waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday. waxaana naga go'an in aan sii wadno si aan uga maray dhalino hadduu Ilaahay yiraahdo. mudanayaal iyo marwooyin, sarreynta sharcigu waa udubdhexaadka dowladnimada. sida ugu habboon ee lagu gaari karana waa xoojinta iyo tayeenta nidaamka cadaaladda dalka. dowladeennu waxay dib u eegis qoto dheer ay ku samayn doontaa nidaamka cadaaladda, waxayna si dastuuri ah u xoojin doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo awoodda sharciga. waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga uu noqdo kii sarreeya oo loo sinaado. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa biyo kama dhibcaan ah in la soo celiyo kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dowladooda. waa in shacabku ay dowladdu u arkaan mid u shaqaysa ee aan ka shaqaysan, mid u adeegta ee aanan ka adeegan, mid u turta oo aan ku tuman, mid u roon oo aan raran. taas si loo helo, dowladdu waxay qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dowladda. dowladdu waxay astaan u noqon doontaa adeega shacabka. shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dowladda taageeraan ilaan iyaga iska leh. waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan amniga
waxaan ka rabnaa inay dhiibaan canshuurta ama dhaqaalaha dawladda ee ku shaqaynayso maxaa yeelay daacad kastaan ahaado waxaan ka shaqayn karaa oo maamuli karaa wixii lii dhiibtay marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay dawladoodu taageeraan oo dhaqaalaha aysan ka hakran oo ay canshuurta bixiyaan mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago amni xumada cadowga labaad ee ragaadiyay dalka iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakhri oo baahsan shaqala'aantu way ka badan tahay 80% taasi waxay keentay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo matala in ka badan 70% ay rajo beel noqdaan isla markaasna dalka ka hayaamaan iyagoo u baxsada Yurub iyo Ameerika in badan oo kamid ah oo wiilasheena iyo gabdhaheena waxay ku dhamaadeen oo ay ku baaba'een oo ku dhinteen badaha u dhaxeeya Afrika iyo Yurub qaar kalena oo badana waxay ku jiraan xabsiyada ku yaala dalalka ay u tahriibeen iyo dalalka ay joogaan qaarkood xitaa qaar badan oo kamid ah oo dhalinyarada ay marin habaabiyeen kooxda argagixisada ah oo waa kuwa rajada iyo nolol ka raadiyay inay kooxahaas ku biiraan aniga waxaan ahay waalid leh caruur furaya ah waxaan dareemi karaa xanuunka ay leeyihiin in ubadkaagii ay badda ku dhintaan ama ku dhamaadaan ama lagu haysto xabsiyo shisheeye dawladdeena waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo taabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumaddii iga horeysay ay samaysay in badan dawlad goboleedyaduna ay ansixiyeen isla markaana deeq-bixiyaashu ay soo dhaweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed qorshaha horumarinta qaranka ee 3 sano oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwa ganacsi oo aad u badan wuxuuna horseedi doonaa in la dhiso qaybo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka dawladdeena waxay hubin doontaa in qorshahaasi uu ka tarjumo baahida iyo aragtida dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo dhan mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxay qaadatay hanaanka federaalka ah dawladdii hore waxay ku amaanan tahay inay soo dhistay 4 dawlad goboleedyo iyadoo Puntland ay horay u sii jirtay hooyana u ahayd hanaanka federaaliga ah dawladdeenu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay insha Allah waxaana xoojin doonaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada gaar ahaan dhinacyada amniga dawladnimada ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxaan dhisi doonaa gudiyada ay dastuurku faray ee loo asteeyay inay xoojiyaan cilaaqaadka dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada si gaar ah waxaan dawlad goboleedyada isaga kaashan doonaa sare u qaadaynaa dakhliga labada dhinac wadaageenaa khayraadka dabiiciga ah xoojinta ganacsiga u dhaxeeya gobolada iyo dabcan wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo kuwa cadaaladda dawlad goboleedyadu waa baalashii ay ku buubi lahayd dawladda federaalka ah dawladda federaalka ahna waa indhihii ay dawlad goboleedyadu wax ku arki lahayd iskaashigoodu waa laba huraan waxaana dhowaan safarro ku soo kala bixin doonaa insha Allah dhammaan
xarumaha dowlad goboleedyada anigoo dhageysan doona madaxdooda iyo bulshada intaba. mudanayaal iyo marwooyin, 10kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay soo ceshanaysay xiriirkii caalamiga. dowladdeenu waxay la imaan doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotoma 2 arrimood oo muhiim ah oo xasaasi ah. 1 iskaashi, 2 ixtiraam. dowladdeenu waxay culays weyn saari doontaa inay iskaashi dhow la yeelato dalalka kale, gaar ahaan kuwa aan bahwadaagta nahay ee gobolka Geeska Afrika, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Midowga Yurub iyo Mareykanka. iskaashiga ugu muhiimsan ee 2 dal dhex mara waa midda ganacsiga, waana midka ay Soomaaliya si weyn ugu baahan tahay. dowladdeenu waxay abuuri doontaa jawi sahla iskaashiga ganacsigaas. waxaan dhammaystiri doonaa sharciga maalgashiga dibadda oo uu ansixiyay baarlamaankii hore. waxaana samayn doonaa wakaalad ama hay'ad qaabilsan maalgashiga dibadda oo si hagar la'aan ah u raadisa in Soomaaliya la maalgashado. si gaar ah dalalka aan dariska nahay waxaan la samaysan doonaa nidaam iskaashi ganacsi. waxaan rumaysanahay in ganacsigu uu horseedi karo isdhexgalka bulshada iyo labada dowladood ay wax badan kala faa'iideysan karaan dhaqaalahooda oo kobca. mabda'a labaad waa ixtiraam. waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin oo ay ugu horeyso inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan, aynan ku samaynin arrimahooda gudaha. iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah. dardaaran aan rabo inaan u diro nabadiidka al-shabaab sidaad ogtihiin sanadkii la soo dhaafay qaraxyadii iyo ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaraya 900 oo qof oo Soomaali ah oo waxba galabsan, caruur, ciroole iyo dumar u badan. daraad waxay ku laayeen 30 dad wax magarata ah oo waxba aan galabsan oo caruur iyo dumar iyo ciroole ah. 40 kalena waa ku dhaawaceen. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oo 12 milyan in ka badan ah ma hor istaagi kartaan. waxaan idin sheegayaa dhowr qof aad dishaan iyo hanti aad burburisaan Soomaali ku qalbi jabi mayso. Soomaali maanta waa isku duuban tahay. waxaan idin sheegaynaa khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la khalday, waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda Soomaaliyeed oo walaalaha ah, in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay. waxaan uga digaynaa in aysan dalkan horumarkiisa aysan hor istaagi karinna. waxaan diyaar idinla nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol. kuwa u shaqeeya al-Qaacida iyo ISIS iyo ummado kale oo dalkan aan doonayn inay istaagto, waxaan idin sheegaynaa waqtigii waa dhammaaday. ummadda Soomaaliyeed ee qaybsanaayeen fursad yaad haysataan. ku soo biira Soomaaliya horumarkeeda, ku soo biira walaalihiin. wixii aad samayseen waad samayseen, waa lidin khalday. diyaar waxaan idinla nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno. haddii aad ogolaan weydaan hadda 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortagi kartaan.
walaalayaal guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sida aragtaan maanta in laba madaxweyne oo hore ag taagan yihiin waxaan noo bilowday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xagjir waa ka gudubnay hadda waxaan maraynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn waxaan ku gaari karnaa annagoo wada shaqeyna annagoo u soconna dhankii dimuqraadiyadda annagoo la shaqeyna dawladaha dariska annagoo kala shaqeyna dhanka amniga guud ahaan caalamka annagoo soo dhaweyna cid walba oo adduunka ah oo gacan la siisa cidaana soo dhaweynayna annagaa soo dhaweynayna insha Allah diyaar dawladdan waxay u tahay in ay ku shaqeyso sidaad filayseen oo aad ku soo dhaweyseen dawladdani waxay ku shaqeyn doontaa inay ilaaliso ammaanada dadka waxaa jira perception aad u xun oo adduunku naga faafiyay inaan nahay dad musuqmaasuq badan waxaan ka galnay sanadkii la soo dhaafay dalka ugu hooseeyaan ka galnay adduunka shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Allah waxaan Soomaaliya ha noolaato guul